Bismillahirrahmanirrahiim. Magacaygu waa Cabdulcasiis Aadan. Maanta halkan waxaan doonayaa inaan idinku soo jeediyo 3 xabad mobilkaaga Wi-Fi uga samayn kartid. Habka koobaad waxaad isticmaalaysaa setting-ka mobilkaaga. Waxaad tagaysaa mobile hotspot and tethering barta aan ku dhuftay. Waxaad tagaysaa mobile hotspot. Markaad halka ku dhufatid bartan timaadid, bartani waa bartii laga maamulayay hotspotka guud ahaan. Markaad halkan timaadid waxaad ku dhufanaysaa more markaan ku dhufto configure mobile hotspot oo meesha configuration-ka laga buuxinaya. Configure mobile hotspot markaan ku dhufto halkan waa network name-ki ama SSID-ga saad u taqaanaan. Network name-ka waxaan ku qorayaa Cabdulcasiis Wi-Fi. Markaan halka ku qoro waxaad ka dhigi kartaa hidden baad ka dhigi kartaa hidden network ama visible network. haddaan tigta saaro waa hidden network buu noqonaya, laakiin haddaan ka qaado visible network buu noqonaya. Marka visible shaasaan u daysanayaa. Halkan security-ga mid password open baan ka dhigan karaa ama mid qof kastaba password ku soo galayo. Haddaan doonayno qof kastaba password ku soo galo waxaan ka dhigayaa WBA2 halta hoose. kadib halkan waxaan gelinayaa passwordkii. Imika passwordka waxaan ka dhigayaa 1 2 3 4 5 6 7 8. markaan halkaas ka dhigo show password halkaas iska aad safe oranaysaa. Hadda configuration-kii kaliya samaysay ma samayn wax wifi ma share gareyn. Si aad wifi u share gareysid ama hotspot share gareysid meesha off-ta ah baad on siinaysaa. On markaas siisid wuxuu ku oranaya turn on mobile hotspot will turn off wifi. Okay baa siinaysaa. Okay markaas siisid hadda dadkii waxay wada haystaan hotspot ka dadkii aad wada share gareysay weli wifi ma joogo network, laakiin hotspot baa dadkii wada jooga. Si aad network u share gareysid ama internet wifi-ga daaraysaa ama mobile data. Hadda mobile data markaan daaro mobile data aan daarayaa. Markaan daaro mobile data dadkii internet baa wada jooga. Step-ka koobaad hadda waad tijaabin kartaa wifi ba dadku wada isticmaalayaan agagaarkaaga jooga, passwordna lagu soo galayo, magacna leh. Step-ka labaad ee mobilkaaga Wi-Fi uga share gareyn karto waa inaad ku soo shubato mobilkaaga internet sharing. Waa programka cagaarka ee hooseeya internet sharing baa la dhahaa. Waxaadna ka heli kartaa hadda linkigiisa meesha ka soo dhageysanayso. Waxaad tagaysaa YouTube-ka markaad tagtid video-gan bartan aad ka daawanaysid horta waxaad tagaysaa Cabdulcasiis Aadan kadib enter baad siinaysaa ood ku dhufanaysaa. markaad Cabdulcasiis Aadan saa ugu dhufatid instead for tidaahdid Cabdulcasiis Aadan waa channelka 3 videos 8 subscribes ka ku taalo weeyaan. Marka waxaad tagaysaa video-ga u sareeya 3 xab oo mobilkaaga Wi-Fi uga samayn kartid kaasaad ku dhufanaysaa ka u sareeya. Markaad ku dhufatid waa sida qaabkii loo sameeyay weeyaan Wi-Fi-ga. waa noocyadii qaabkii loo sameeyay Wi-Fi-ga weeyaan u share gareysay. Marka wuxuu ku jiraa linkigu wuxuu ku jiraa barta HTTP Play Store linkiga buluuga ah ee halka yaala waad ku dhufanaysaa. Linkiga hadda markaan ku dhufto waad arkaysaa wuxuu igu xulayaa Play Store-kii meeshan ka soo dhawgareynay. bartaas waa programka weeyaan bartaas halkaas ka soo dhawgareynaysaa. markuu dhawgareysmo open baad oranaysaa. Open markaad tidaahdid waxaad samaynaysaa halkan wuxuu ku leeyahay SSID-gii network-gu adiga arkay meheradaha markaad ama internet-da markaad u timaadid waxay ama D-Link baa ku qoran Al-Fadli Company saas wax magac baa ugu qoran. Marka tan waxaad samaynaysaa magacaan ku qoraya lagu soo galiyo. Waxaan ka dhigayaa D-Link baan ku qorayaa. markaan ku qoro password-kaan sameynaya wuxuu noqonayaa 7 waxaan ka dhigayaa 87654321. saa markaas u daba mariyo baan waxaan ku oranayaa waa WBA2 oo waa mid password leh. hadda waxaan sameynayaa waa disconnected weli ma xiriirsana. hadda intaan saa u soo furo oo hotspot ka daaro oo okay siiyo baan disable oranayaa. hadda adoo arkaya baa wuxuu sameynayaa inuu connect gareysmo. connected hadda connected soo qoray halkaas ku soo qoraya connected. hadda wuu connected gareysan yahay. dadkii oo dhan ay ku dhawaayay oo dhan internet bay isticmaalayaan. taas macnaheeda qaabkan waa loo keeni karaa. waxaa jira step saddexaad oo ah inaad connectivity ku soo shubatid mobilkaaga. Step-kaasi waa step dheer.
stepka dheer marka qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa. Waadna mahadsantihiin dhammaantiin.